أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، walaalayaal dhammaantiin waan salaamayaa meel walba ood joogtiin. waxaan jeclahay inaan halkan kasii wado mowduucii aan ka hadlayay ee ahaa qurbaha iyo waa maxay qurbe, qaybtiisii saddexaad insha allah. qaybtan saddexaad oon diiradda saarayo ama aan ka hadlayo waxyaabaha aan ka baran karno qurbaha ama waayo aragnimada aan ka qaadan karno maxay tahay. dhegeysi wanaagsan iyo isla socod wanaagsan. marka ugu horeysa, marka aan ka hadlayo dhibaatooyinka qurbaha ama siday aniga ii taabanayso ama sida ay qof walba oo qurbo jooga u taabanayso, runtii experience-ka ama waayo aragnimadaas wax badan baa laga faa'iidi karaa. wax badan ayaa fursad loo helayaa in laga faa'iido. waxyaabaha ugu horeeya ee qofku hortaba uu dareemayo ama uu ka faa'iidayo qurbanimada waxaa ka mid ah wadan jacaylka. inaad wadankaagii tabto, inaad wadankaagii jeclaato, inaad wadankaagii mar walba aad ku fikirto uu noqdo shay mar walba aad ku fikirto ood isleedahay caqligaaga iyo maskaxdaada intaad ku hayso mar walba aad isleedahay goorma ayaad wadankaagii tegi, goorma ayaad qof muwaadin oo wanaagsan noqoni, goorma ayaad dhulkaagii wax u qabani. waxyaabaha ugu horeeya ay yacni dadku ka faa'iidayaan taana waxaa kugu dhalinaysa markaad aragtid dad dhulkoogii jooga, dalkoogii dhistay, ku qanacsan, ku faraxsan, in laxajecla ay ka hayso, yacni mar walba dee u hoggaansan shuruucyada ay dejisteen iyo noloshooda kala duwan, waxyaabaha ay ku heshiiyeen inay mar walba ay runtii ay ku dhaqmaan oo dee dhulkooga ilaashadaan, runtii ayna horumariyaan. dad ku fikiraya oo caruurta sii dhalaan generationadooda dambe ku fikiraya, noloshooda kasii fikiraya toodii iyo tii caruurtooda intay meel iska dhigeen caruuraha dadka kale iman doona ee tafiirtooda iyo dhulkooga kasoo jeeda noloshoodii dad haddana u diyaarinaya. markaad aragtid ayaad runtii aad odhanaysaa, adigu laftigaaga is odhanaysaa dhulkaagii goorma ayaad tegi, goorma ayaad wax u qaban, goorma ayay dhulkiina oo sida noqon. yacni mar walba waa waxaad ku fikirayso adiga oo yacni ku taabanayso qurbanimada iyo in yacni mar walba aad tahay qof dhulka laga jeclayn, mar walba aad dareemayso siyaabo kala duwan oo lagugula dhaqmayo, yacni oo ku dareensiinaya yacni dee xanuunkeyga iskale oo mar walba yacni ku dareensiinaya qof ajnabiya tahay ayaa mar walba waxay mar walba adiga maskaxdaadii ay yacni mar walba waxaa maskaxdaadi kusoo noqonaya dhulkaaga ayaa mar walba kusoo noqonaya. waa waxyaabaha yacni ugu muhiimsan ee yacni dhulkani runtii laga baran karaa. wadananimadu waxay ka dhigan tahay iyo wadan jacaylku wuxuu ka dhigan yahay iyo laxajeclada dhulkaaga aad ka qabtid, yacni dhulkaaga inaad laxajeclayso. anu dadkeena markaan u fiirsado runtii anigii oo yacni dhowr jeer muddooyinkii sanadadii ugu dambeeyay dhulka tegay oona ku noqday oo dhowrkii sano u dambeeyayba ku noqnoqonaya dhulka, waayo kala duwana kasoo arkay, ayaa waxaa aad dareemaysaa inay inagu yar tahay haddaan soomaalinahay shucuurka wadananimadu ama wadan jacaylku inuu inagu yaryahay baad dareemaysaa. ayaad dareemaysaa markaas waxaa yacni aad laxajeclada aan dhulkeena ka qabin inay yar tahay ayaa dareemaysaa. oo dadka dhulkii jooga intooda badan waxaad dareemaysaa inay ayna maxay haydaan ayna dee waxaad dareemaysaa in dhulka ayna saa ayna wax jacayl oo saas ayna u qabin, because dadku waxaad dareemaysaa iyagii oo dowlad hagaagsan inayna jirin, oo dowlad hagaagsan oo shuruuc leh oo kala dambeyn dadka u horseedaysa ma jirto. laakiin dadku haddana iyagaa noloshooda samaysan kara oo bulshada iyo mujtamacu qoysku ka bilaamaya, fardibuu ka bilaamaa, qof fardigaasaa qoys noqonaya, qoyskaasaa bulshaya mujtamac noqonaya. haddii ayna dowlad hagaagsanin ana nasiib u yeelan inay dadkeenu helaan sanadadii u dambeeyey ma last 30 yearski haddana dadku iyagaa samaysan kara nidaam ay ku noolaan karaan
oo qurux badan bay runtii samaysan karaan, khadamaad ama serviceyo kala duwan oo aad u wanaagsan bay samaysan karaan. dhalinyartooda iyo dadka soo koraya caruuraha siday xataa u noolaan lahayn baa wallaahi runtii loo samayn karaa. iyadii oy dhibaatooyin fara badan ay dee dhulkii jiraan oy baahidu uga horeyso, ba haddana waxaa ku dhacay ood oran kartaa dhalinyarta dhulkii joogtay niyad jab oo kuwooga jaamacadaha xataa kasoo baxaya ayna runtii ayna haysanin rajo fiican oo qof walbo jaamacad dhigana mar walba isleeyahay dee jaamacad waan kasoo baxaya laakiin ma kollaan ku shaqaysanaya shahaadadan. intooda badan niyad jab noocaasa ku jirta, taasoo ku kaliftay runtii dhalinyaro badan inay dhulka ka hayaamaan, oy tahriibaan, oy naftooda biimeeyaan, oy runtii khatar geliyaan. runtii ayna khatar tahay, cawaaqibta ay la kulmayaan ay aada u xun tahay. oon ognahay kana dhargisanahay intaas oo dhalinyaro ah oo Soomaaliya inay badaha Liibiya ku dhamaadeen, saxaaraha Suudaan ku dhamaadeen, qurbaha markay yimaadeen qaarkood in badan ay ku dhamaadeen iyagoo waxaasoo rafaada soo maray. haddana qaarkood sharci marka loo diiday, qaar nafta dee ishaleeyay, nafta iskaga jira, ay iskugu jiraan qaar meelo xunxun ku jira. kuwii xataa wadanka ku dhashayna saan soo sheegnay iyaga laftigooda ay dhibaato la kulmayaan ay sii joogay ay jeel xadhig ama dee caruur la qaato balaayo oo dhan dee dhulkan runtii aad dadku kala kulmayaan. haddana dadka jooga ama dhalinyartu intooda badan waxyaabaha noocaasa uma cuntamaan marka iyagoo dhulkii jooga ay maqlayaan oo sheekay la tahay. laakiin waaqaca dee qofku markuu yimaado mar walba arkaya, waayo qof kastoo qurbaha jooga oo maanta waayo aragnimo haysta oo dhibta ay taabatay qurbuhu maalin maalmaha ka mid a markuu dhulkii joogay marnaba muu moodayn waaqac iyo nolosha inay sidan tahay. wuxuu ku fikirayay nolol wanaagsan baad samaysan, nolosha ugu fiican baad adduunka ku noolaan unbay dadku dhulkan ka aaminsanayeen. laakiin waa wax yacni markuu qofku yimaado shoog runtii ku noqonaysa. saan ognahayna runtii qoysas badan baa dhulkani ku baaba'ay. qoysas dee wanaagsan oo caruurahoogii meel gaadhina way jiraan, laakiin majority-ga markaad aragtid qoysasku Soomaalida halka jooga waa dad runtii ku dhibaataysan oo culaysyo kala duwan oo nolosha mid walba uu la tacaalayo intooda badan dhankay doontaba ha ahaato, even kuwa caruurtooda haysta, kuwa muxuuha yacni caroogu meelay gaarin haddana culaysyo kala duwan baa mar walba ku wajahan oo haysta, oo aad moodid dadku inay runtii intooda badan ay walwalun ku jiraan. oo dadka ajaanibka iska daayay dadka kale wadankan u dhashay baa mar walba dad iska unhappy dareemsan unhappy yihiin, dad iska warwarsan dee iyaga waxa ugu wacan intooda badan maaha dad diin haysta. oo qofku markuu nolosha un aamino lacagta uu caabudayo oo dadku noqdaan dad lacag un caabudo oo ilaah aaminsan oo nolol kale aaminsaneyn, taa hadduu waayo ama taas hadday ku yaraato dee intooda badan ama way isku buuqayaan ama wayba isdilayaan. laakiin inagu waxaan ka duwanay alxamdulilah dad muslimaan nahay oo dhaqankoogii diintoodii dee haysta, oo diinta inta badan dadka waxa xajiya ama iimaanka ayaa dadka wax badan yacni inta badan ku xajiya, because waxaan aaminsanahay in noloshan temporary tahay, waxaan aaminsanahay inay nolosha imtixaan loo yimido oo ina farxadi jirin inta badan, balse qofka hadduu xadhiga ilaahay haysto inuu ka badbaadaya warwarka iyo waxyaabaha maskaxda dhibaateeya, xadhiga ilaahay inuu qofku kaga badbaadayo yaan mar walba aaminsanahay. oo qof ilaahay ku xidhan salaadiisa tukanaya oo ilaahay hadalkiisa u hoggaansan, ilaahay mar walbana xasuusan, ilaahayna wuu xasuusnaanayaa mar walba wuuna ilaalinaya. taasi waa tu alxamdulilah rabbilcaalamiin nimcad islaamku au leeyahay oo yacni dadka muslimka ay haystaan weeyaan. alxamdulilah wax ilaahay loogu shukriyo weeyaan. marka way aragnimada ugu horeysa ugu muhiimsan ama faa'iido ugu horeysa aan runtii dhulkeena yacni dadka aan laga faa'iidayo qurbaha waa wadan jacaylka. taasi waa mid weeyaan. waxa kale ee laga faa'iidi karo waxaa ka mid ah qofku inuu halkan intuu waxbarasho ka barto iyo nolosha noocyadeeda kala duwan inuu intuu dhulkii tago ku dabaqo culumta dhulkan laga bartay. ila waxyaabaha fiican waxa fiican in la iskaga daydo, waxa wanaagsan dhulkan ku aragnay siyaabaha dadkan dhulkooga ay u dhisteen ay u ilaashadeen ee horumarka intaa laga gaadheen. runtii inaan inaguna dhulkeenii gaarsiino inaan ku fikirno oon aan horumar aan ku tallaabsano oo dadka qurbo oo dhan maanta qof walba fiilkii uu bartay wuxuu bartay haddii uu tago dhulka ku dabaqo runtii horumar aad iyo aad u ballaaran baa la gaadhayaa. dhulkan dhulkeenii maaha ma aha dhul yacni qofku inuu noloshiisa dhan ku noolaado ama uusa siiyaan runtii waa qalad, because dhulkaagii baa ku sugayo lama huraana waa caws jilaal weeyaan. dhulkaagu waa kalama huraanka mar walba
waa ka ina sugaya ee qof walba u baahan mas-uuliyaddu inay naga saaran tahay. Marka culumta iyo kii lacag ka urursadaa xataa wax ka barana inuu lacagtiisa intuu dhulkii tago service badan dadka uu sameeyo, investment dhulkiisa ku sameeyo. Kii wax bartaana inuu waxbarashadu tago intuu dhulkii tago oo dadka uga faa'iideeyo. Dhalinyarta soo tahriibaysa waxa u baahan yihiin aad in looga wacyigeliyo dhibaatada ay leedahay, halaaga ay naftooda ay marinayaan iyo dhulkan siday noloshu tahay. Inkastoo qofka ilaa uu arka una aaminayn, balse in la isku dayo runtii tusaalooyin badan oo waaqac jira baa jira oo dadku yani ay arkayaan oo runtii ay fiican tahay yani inayna iska indhatirin. Dadka caqliga aqoonta u saaxiibka ee dhulkii jooga ama dhulkii tagaya mar walba in laga wacyigeliyo dhalinyarta inayna naftooda halaagin, because naftu waa shayga ugu qaalisan ee ilaahay yiri yani amaanay nagu tahay, ee ilaahay yiri halaag naftiina ha gelinino. Shayga ugu yar hantaaqada ugu yar baaba dadka loo diidaa, waabase yani qof dhan oo naftiisa isagoo yani arkaya dee ama dhimasho u sii socda ama dhibaato u sii socda haddana qofku indhahaas ka qaadayo u bareerayo. xagga ilaahayna waxun weeyaan oo hadduu naftiisa halkaa ku dhibaatoobo ama wax ku noqoto runtii ilaahay unbaa gan horta waxa u yaala. Laakiin waa wax aad iyo aad u xun in dadka laga wacyigeliyo, in waddanka la jeclaysiiyo, in nolosha sida loo habaystay loo habeeyo. oo hadday nadaafad noqoto, hadday waxbarasho noqoto, hadday caafimaad noqotoba waxyaabaha imika yani wax laga xumaadaa xagga caafimaadka. intaasoo dhakhaatiir baa sanad walba soo baxaysa, laakiin inta ka howlgalaysa way yar tahay. iyo qalabkii oona jirin, iyadoo dhakhaatiirta cilmigii lahayaba haddana qalab jirin. meelaha qaarkood oo magaalooyin waaweyn yaad arkaysa inuu qalab jirin caafimaadkii. dhulka naa'iga ama magaalooyinka ka baxsanna dee dhakhtarnimaba jiraanbaba inta ugu badan. hooyooyinka dhallaanku isku dhintaan inta badan, dhibaatooyin aad u fara badan baa jirta. waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan tahay in laga fikiro sidii loo xallin lahaa, caafimaad wanaagsan iyo waxbarasho fiican sidii loo gaari lahaa. labada hadday dadku ku dadaalaana wallaahi mujtamac wanaagsan oo horumarsan waa lasoo saari karaa. laakiin dadkeena especially anu wallaahi dhalinyarta Soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan odhan lahaa dhulkiina ku fikira, kuna fikira sidaad u bedeli lahaydeen. dadkan maanta jooga waqtigoogii wuu dhamaaday. dadka dhalinyarta kuwa imika soo kacaya kuwa imika jooga weeyaan waqtigoogii inay iyagu markaa mustaqbalka hore ka duwan inay samaystaan. mustaqbalkan Soomaalida ee qabyaalada ku salaysan ee ree hebel meel isku geynayo, ee keen wax garanay because of qabiilku yahay meel loo geynayo, ee kii mutacallinkii qabiilkaasaa tahay loo dambaysiinayo. waxaasoo dhan in laga koraa loo baahaya. qarniga la joogo waynu ognahay in maanta dadkii dayaxa hiigsadeen. marka in waxyaabo fara badan runtii la iska bedelo ayaa loo baahan yahay. jiilka imikaana waxaasoo dhan bedeli karaa haddii lagu dadaalo. runtii wax adagna ma aha. marka ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu khaatimada mar walba ina waafajiyo. intahan inoo soo sheegay waayo aragnimada laga baran karo, intaan soo sheegay in ka badanba runtii waa laga faa'iideysanaya. oo intaa qofku ku walwalo inuu waddankiisii dee markii hore auna dareensanay faa'iidaday leedahay أو dareemayo wanaaga iyo sharafta iyo ciziga qofku ku noolaan karo hadii wadankiisa joogo ayaa faa'iido weyna. anu laakiin waxaan oran lahaa qof walbowba dhulkaaga inaad ku noqoto ku dadaal, caruurtaada inaad horumariso jiilasha soo socda ku dadaal. dhibaatadani dhulkan qurbaha inagu haysatee caruurteeni saa loo qaadanayo, maalin walba hooyo ooyeyso, maalin walba dhibaato la sheegayo, runtii waxa loo baahan in laga baxo. waxaana lagaga bixi karaa iyadii oo isbedel la sameeyo, dhulkii isbedel laga sameeyo, dhalinyarta jiilka jira ay isbedel runtii sameeyaan. dadkan imika jooga uma baahnin runtii dad wax u qabanaya dadka maaha, dad naftooda uu shaqaysanaya laakiin aan rajo ka qabin mustaqbalka caruurta iyo generation soo socda. taana looma baahno in la bedelo ayaa loo baahan yahay. marka waxaan oran lahaa dadku mar walba sidaas runtii ku fikiraan. waalidada iyo hooyooyinka iyo aabayaasha joogana caruurtooda la dadaalaan oo say wax mustaqbal ugu sameyn lahaayeen, dhulkooda ugu celin lahaayeen, diintooda iyo dhaqankooda ay xajisan lahaayeen. aabo kasta iyo hooyo kastana ku dadaasho ayaan oran lahaa. intaasaan maanta kusoo gabagabeynayaa. ilaahay khayrkayna waafajo kuwa xumaa iska reeb, wanaagga isfara ilaahay mar walba haynaga dhigo. haddii aad mawduucan ka hadlaya mawaadiicdan ka helaya aad ka hesho walaal la wadaag asxaabtaada, waxaa laga yaabaa inuu qof ka faa'iideysto. aad baan idin salaamay, waad mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.